goorma ayaad noloshaada beddelaysaa? qofkaan la hadlayo waa adiga. sanadku waa bilow, dhammaadkiisuna waa dhow yahay. bilowga bisha January-na waxaa ku xiga dhammaadka bisha December. goorma ayaad rabtaa inaad noloshaada beddeshid? ma waxaad sugaysaa in noloshaada qof dabadda ka yimid ama xoog dabadda kaaga yimid ama wax lagu sheegay ama cid qaraabo ku caawisay ama dawlad ku caawisay in ay noloshaada beddesho? maya. haddii aan tusaale cad ku siiyo, hadduu qofku u socdo dhanka dabayshu ay u socoto, dabayshu waxay samaysaa qofkaas socodkiisii ayay xoogaa ku dartaa. haddii laakiinse qofku uu u socdo dhanka dabayshu ay ka imaanayso, qofkaas socodkiisa asna xoogaa ayaa gala. laakiin bal ka waran qofku hadduu fariisto, dabayshu ma socodsiin kartaa? maya. haddaba haddii adigu aad socotid, qaraabadaada ha ahaato, saaxiibadaada ha ahaato, dadku way ku caawin karaan, horay kuu dhaqaajin karaan. caqabaduhuna dabaysha sida ay kaaga hor timaadoo kale ayay kaaga hor imaan karaan, laakiin kuma joojin karaan. haddiise laakiin aad fariisatid oo adigu aad nuucsan weydid, caqabadana wajihi maysid. ehel, saaxiib, cid ku kicin karta oo meesha kaa dhaqaajin kartaana ma jirto ilaa inaad adigu isdhaqaajisid maahan. haddaba insha allahu tacaala muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugula wadaago 4 qodob oo noloshaada haddii aad ku dhaqaaqdid insha allahu tacaala ay si dhaqso leh isku beddeli doonto. qodobka koowaad waxaa weeye go'aanso inaad isbeddeshid. waa inaad adigu go'aan ku gaartaa inaad isbeddeshid. waa in aad fariisataa oo qalin iyo warqad inta qaadatid oo nafsadaada la fariisatid aad qortaa amase aad ballan ku gaartaa inaad isbeddelaysid. waxyaabaha aan daldalayno dhan waxba kaama beddelayaan haddii adigu aadan go'aansan inaad isbeddeshid. ukunta waxaa la yidhahdaa xoog haddii dabadda looga keeno way baaba'daa oo way dhimataa. haddii laakiinse xoogga uu gudaha ka yimaado ayada, shimbir nool ayaa ka soo baxa. marka adiga ayaa lagaa rabaa in uu go'aanka isbeddelku adiga kaa yimaado. adiga ayaa la rabaa inaad go'aansatid inaad isbeddelaysid. qodobkeena labaad waxa uu noqonayaa inaad joojisid cudurdaarka. waxaa jirta waxyaabo badan oo nafsadeenna aan ugu qancinnay in ay meesha maanta ay joogto. waxaa ka mid ah tusaale ahaan in qofku wax kasta oo isku dayo markii caqabad uu kala kulmo oo isku qanciyo waxaan in uusan awood u lahayn. runtii awood waad u leedahay inaad qabatid. iska dhaaf cudurdaarka. cudurdaarka aad isku qancinaysid, cudurdaarka aad bulshada kale la wadaagaysid ee aad leedahay waxaan aniga wax aan awoodo maahan. iska dhaaf. waad awooddaa waana qaban kartaa. isku day. qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa oo haddii aad rabtid inaad noloshaada beddeshid, inaad ku dhaqaaqdo, wuxuu noqonayaa beddel caadooyinkaaga. haddii aad rabtid inaad noloshaada beddeshid adigoo weli saaxiibadaadii hore leh, adigoo weli caadooyinkaagii hore leh, dabcan wax kuu beddelmaayo ma jirto. haddii aad rabtid inaad noloshaada beddeshid oo go'aankaas aad qaadatay, waa ku soo dhoweynayaa, laakiin shuruud waa in aad beddeshaa caadooyinkaagii. haddii aad salaad subax ka bacdi iska seexan jirtay, caadadaas waa inaad joojisaa. haddii aad social mediaha si micno darro ah iskaga wareegi jirtay, waa inaad caadadaas joojisaa. haddii aad lahayd saaxiibo xunxun oo intay ku soo raacaan meelaha lagu fadhi ku dirro ku keena oo maantoo dhan galabtoo dhan halkaas wakhtigu kaaga dhammaado oo adaguna waxba qabsan ayaguna aysan waxba qabsan, waa inaad beddeshaa. waa inaad ku beddeshaa saaxiibo wanaagsan oo wax akhriya, oo wax barta, oo naftooda ka fakera, oo adduun iyo aakhira u shaqaysana. qodobka ugu dambeeya ee afraad waxa weeye ee aad iyo aadka muhiimka u ah waa inaad rutiin yeelataa. rutiin waxa waaye waa in aad waxyaabo aad rabtid inaad qabatid waa inaad qortaa. tusaale ahaan waa inaad go'aan ku gaartaa in aad habeen walba soo kacdid 10 saac oo kale ama 10 saac iyo barka tusaale. go'aankaas iyo caadadaas cusub ee aad samaysay ee ah inaad xilligaas soo kacdid waa inay noqotaa mid rutiin ah oo soo laalaabata. aysan noqon
mid 2 subax ama 3 subax kaliya ku eg. waxaa lagaa doonayaa in aad cibaadadaada iyo ku xirnaanshahaaga alle aad sar u soo qaadid, in aad salaada subaxa aad jimaaco ku tukatid, kadib aad quraan akhrisatid, adkaar akhrisid. waxaasoo dhanna waa in ay noqdaan kuwo rutiin ah oo soo laalaabta. waxaa lagaa doonayaa in aad caafimaadka noloshaada kor u soo qaadid oo aad quraac fiican cuntid, jimicsina subax walba samaysid. jimicsigaasna iyo biyo fiican aad cabtid, kuwaasna waa inay noqdaan kuwo rutiin ah oo soo laalaabta. sidoo kale waxaa lagaa doonayaa in aad noloshaada beddeshid oo aad bilowdid koorso cusub ama shaqo cusub ama ganacsi cusub, wax kale cusub way noloshaada kusoo kordhisaa. waxaas aad soo kordhisidna waa inaysan noqon wax maalin ama 2 isbuuc ama bil kaliya ah, ay noqotaa wax rutiin ah oo soo laalaabta. ogow in wax la bilaabo way sahlanta, laakiin in la joogteeyo way adagta. haddaba haddii aad ku guulaysatid joogtaynta, waxaan kuu ballan qaadayaa in noloshaadu ay isbedeli doonto. ilaa muuqaalka xiga, soo dhawaada saaxiibayaal.